السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة قيمة قدرين تمضان بان دين سلامية ملك صدافة عالم كاد كجوكتان سودوا صاحبيال نينك هالكان إذا كموقضه وين إله باوينه إلا جرد ليو وحصور تقال إن كان حسن تسرد هاي صوب تقدم بس نينك لو دليو متوق با وحا أسميه هدي مقشنه dhegta iyo afka ayaad gacanta saaran doontaa muuqaalkan wuxuu aad u anfici doonaa ragga xaaslayaasha ah waliba inta badan habeenkii ku soo daaha banaanada ama laadhuwa ku soo dheelo ama turba ku soo dheelo xaaskiisa guriga u fadhido ninkan ayaa wuxuu sabab noqon doonaa nin walbo oo xaas leh in gurigiisa u yimaado xilli hore waliba uu ka warhayo xaaskiisa ninkan wuxuu bartilmaamay sida kaliya xaasaska la qabo guriga ayuu habeenkii ka soo boodaa haddii halkan lacag taalo haddii dahab yaalo hadduu taleefan yaalo hadduu laptop yaalo wax kasto oo qof hunguri ka geli lahaa uma baahna si toos wuxuu u galayaa qolka jiifka xaaskaaga haddii hurudo iyo haddii soo jeedaba wajiga ayuu u marinayaa raali iyo nus ay ahaanaysaa waliba waxay ula macaamilaysaa sida ninkeedii oo kale ayadoo ku qanacsan horaa loo yiri luqluq maro laazim laamiga ayuu yimaadaay ninkan markii dambe wuxuu ku qaldamay xaas la qabo waliba umul ah qolkii ayuu ugu galay asagoo rabo inuu hooshiisii bilowdana waa laga soo gaaray oo raggan jirdilaya ayaa ka soo gaaray ninkan in muddo ah ayaa la baadi goobayay ugu dambeena siriqdii ayuu ku dhacay haddaba waxa ku saabsan muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa muuqaalka xiga ee aan rabo inaan idinla wadaagana waa gabadhan Soomaaliyeed ee aad arkaysaan ee aanan waalneen laakiin waalida aan wax dhaamin dharkeedii ayay jeexjeexaysaa waliba erayada ay ku cataabi doontana waa qalbi taabad qof naxariis damqasho yar lehna way ku adag tahay inuu daawado haddaba sababta ka dambaysa gabadhan in sidaan muuqaalkeeda uu u dhala rogmo dharkeedii sidaas u dildilaaciso waliba adigu arkayay tahay gabar qurux badan caafimaadna oo ka muuqdo waalina ay ka muuqato ayaa waxay tahay maseerku waxa inta badan la yiraahdaa waa qayb kamid ah waalida haddaba gabadhan erayada ay adeegsanaysa ayaa waxa kamid ah naag le isirayso waa laga dulqaaday waana kii labaad waxa ku saabsan muuqaalkaana waan idin la wadaagi doonaa intaas u guda galin haday satay booqashadaadii ugu horeysay waxaan si xushmad ku dhahantahay kaga codsanaya walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa inaad muuqaalka inoo qorxisaan oo aad laagta iyo sheerta isugu keendartaan si muuqaalkeena uu gaaro saaxiib badan mar walba oo aad muuqaalka laagta aad saarto waa mar walba muuqaalka gaaro saaxiibo kale oo channelkana subscribe inoogu saara aad baad u maasantiin alaaba tixgelinta codsigiga ka dhanka ah la gareenta iyo share gareenta haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar saaxiibayaal soo dhawaada mar kale iyo mar xiga xaaladdu maanta aad bay u kacsan tahay waliba muuqaalkan wuxuu aad uga socdaa ragga xaaslayaasha gabadha muuqaalkan daawanaysa ee xaaska ah ninkeedii ka soo daahana waxaan leeyahay fadlan muuqaalkan la wadaag ninkaagii si oo xilli hore guriga bacdal cishaba guriga soo xaadiro hadii kale ninkan aan shaqo kala qabin naagaha la qaba bis bartilmaameedsada haddana ma qasbayo ma xoogayo balaayo ayaa gacantiisa saaranba wajiga ayuu sida weysaqaad camal ma aragtay cunugeer wajiga laga dhaqayo kale wajiga gacanta ugu marina raali iyo nus ayuu noqonaysaa waliba waxay ula dhaqmaysaa ninkeedii si ula dhaqmaysa asagoo raali ayuu albaabka ka baxaya waliba way sagootinaysaa cid ogaanaysana ma lahan ninkeedii haduu yimaadana war iyo wacaal ma hayo iyadana maba oga wixii dhacay halkaas ka dhacay ma oga oo maankeedii maskaxdeeda ninkan waa uu doorinayaa balaayo sixir inda sarcaad waxay yihiin bakaale sheeg kaliya intaas waba ka shaqeystaaba maalintii ayuu bartilmaameedsadaa magaalada soo gaaf wareega xabad shidan oo daba kaca xaasmiyaha gurigu taga xilliyada marka labada saac habeenimo halka saac iyo waa xilli dadka inta badan soo jeedaan guriyana ay furan yihiin wuu galayaa toos qorka u bartilmaameedsanaya dhab wajiga albaabka saaxiranaya no hooshiisu qabsana waa baxa ninkii ugu dambeyn horta waa la qabtay tii dheereed ayaa lagu dhigay lafaha ayaa laga garaacayaa xogta muuqaalkaana waan idin la wadaagayaa laakiin nin walba oo xaasla ah taxadar dheeraad ha muujiyo balaayadan hadda la arkay waxa suurtagal ah balaayo ka badan amba halku ka soo bartayba
inay jiraan kuwa kale oo sidan ku adeegta laakiin wali sirtoodii xogtoodii iyo aan waxba la soo helin hayay wala soo galay bal muuqaalka ayran wada daawano أو لهلا سفاح ودور سفاح واستوسي هذيلا ورا يدل ورا كل ما يستوي يدل هذه وا كل ما يستوي يدل هذه عندها فرابة يدل والله يدل كان هذا كيسو كمبيوتر موبايل lacag hadaasaysa midna kama qaadaneed markoo sawir inuu tuuyo ku soo dhaca ninka tuugma anaga bari waxaan jiray garaanla ama dhilay kolba saa u taqaanid ninkan wuxuu sameeyaa gabdhaha xaaska hel qabo ayuu qolalka jiifka ugu tagaa inuu wax mariyaa gabadhii raali ka adeeganaya waa soo baxaya hadda waxa lagu qabtay asaga oo gabar jiifka qolka jiifka asagoo gabar kula jiro umul ah oo raba inuu dhamaysto hawsha indhii wax mariyay hawshan inuu dhamaysto rabe laakiin wala gaar nasiib wanaag waxa waa soo gowrici rabo hawshiisa wadan raba oo macnaha ha adeegan rabadee yaa lagu qabtay aakan ninka wajiga waa diidan yahay in la arko waa diidan yahay waxa la sameeyay luq maru laazim laami yimaada saaxib si walba ordo laazim waxa waa laami amanaysan gabadha ilaasho nin xaas qabow gabadha ilaashana iska bulanay daawadayaal ugu dambeyn waxaan filayaa muuqaalka inaad si wacan u daawateen ma tahay xaas la qabo muuqaalkan u sheergareen ninkaaga hadduu yahay nin isla wareega maqaayadaha iska fariista laadhu iska dheela fadhi ku dirir ku maqan sheeko aan maala yacni oo aan shaqo ahayn aan reerka wax kusoo kordhinin hadduu ku maqan yahay muuqaalkan la wadaag waxaana ku tiraahdaa ilaasho haddii aad rajo iga leedahay haddii kale kan oo miiran ayaa magaalada joogo intaad maqan tahay xaaskaaga waa lagu saxiinaa adiguse xaaska ah ama ninka ah muuqaalkan daawanaya rag iyo dumar midkaa doonta ahaaw ninkan haddii lagu soo gacan geliyo oo lagu yidhaa ciqaab xukun maxaad ku xukumi lahaydeen madil maxabsi daa'im bal ra'yiga ka dhanka ah muuqaalkan nin iyo naagba waxaa tahayba gabar iyo wiil waxaa tahayba gabar aan la guursan haddaa tahay gabar la qabo haddaa tahay nin aan guursan haddaa tahay nin guursada haddaa tahay bal ninkan maxaad ku xukumi lahaydeen muuqaalka qaybta commentiga ayaad inagu cabiri kartaan muuqaalka xigay aan idin hayo wuxuu yahay gabadhan Soomaaliyeed da'da yar quruxda badan haddana xaaladeeda sidaas u jahwareysan tahay dharkeedii oo idil way dildilaacisay ilaan maseerku waa qayb ka mid ah waalida haddii aad maqli jirtay ayadoo muuqaal ayay sidaa gabadhan waa gabadh iska qalbi xabxab ah sida ku muuqato waa daacadnimada inta ka tambadisay ee heer waxay gaartay noloshii qarsooneed ee ayada iyo ninkeedii ka dhaxeeyay in la wadaagto gabar walba ay saaxiib ahaadaan sirtii ay la wadaagaysaa ugu dambeynna ninkii ayaa laga qaadanayaa hadalada ay ku cataabaysa ayaa waxay tahay aniga mar walba naag le isirayso anigu mar walba naag le isirayso waa ninkii labaad oo sidaan laga dul qaaday waliba ayadu ku cataabayso isoo noqo bal waa kan muuqaalkaas kooban iyo muuqaalka xiga ee saarataysti eed isoo laabo miya bal inta jaceelka saaxiib ku ah gabadha muuqaalkeeda soo daawano naag la isirayso waa laga dulqaadaa kii labaad waaye looyo yani naagaan intaas ka geeya way igu dirayaan luuq bay kala baxayaan le ninka caranimadeyda liiga tegay ilaa ii soo celi martiikeeni weyda mahado xasuustaadu waa kana xasuusta badan ajira waa ebran ka dhigi wallaahi waa ku rabaa waan ku jeclahay waan ku baryaa ii soo laabo muuqaalkan waxaan filayaa marka horena si waxaan u daawateen wuxuu wacdi iyo waana kaga filan yahay lamaano walba oo aan weli isguursan weliba ka dhaxeeya xiriir jacayl dhab ah midkood haddii uu noqdo mid afka ka falan ee la wadaaga asxaabtiisa sirta
ninka iyo naagta ka dhaxayso amba ninka ha noqdo mid ka sheekeeya amba xaas gabadha ha noqoto mid ninka ka sheekeysa waxay halis u yihiin saddexeeye wax la yiraahdo adduunku dadku qaar way ku adag tahay laba qof oo si dhab isku jecel isla jaan qaadaya in la arko saddexeeye meel oo kiid la aqoon wabku soo dhaxdhaay kadibna jahawrada lagu ridaa burbur ayaan ku imaanaya xaas iyo nin isqaba hadii aad tihiin nin iyo xaaskiisa daatihiin fadlan mar walba waxaad ka taxadartaan inuu idin yimaado qof banaanka idinkaga yimid waliba hooshiina noloshiina hoose su'aalaad ka weydiiyo mar walba oo ninka xaaskiisa laga weydiiyo su'aalaad waa inuu ugu jawaabaa xaaskaygu waa qof wanaagsan una hadalkana soo gaabiya mar walba oo sirta idin dhaxayso oo qofka saddexaad ogaada wuxuu kolkolaareynaya amba uu ogaanaya qalbigaaga rabitaankaaga iyo aqligaaga miisaankiisa intuu la egyahay kadibna wuxuu bilaabayaa in uu bilaabo hadaladii inuu dhanka kale u gediyo asagoo xumaan ka raadinaya qofka xiriirkiisa ka dhaxeeya amba qofka nolosha aad wadaagteen waxa lagu leeyahay qofkan nolosha ayaa isku keentay waad isguursateen ilma ayaad isku dhasheen laakiin ha aaminin ninku waxa leeyahay xaaska ha aaminin gabadha waxa leeyahay ninkaaga ha aaminin okay su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay marba hadaan la is aamini karin oo noloshu aysan naqanin mid cadaalad ku dhisan kalsooni ku dhisan is aaminaad aysan jirin see loo wada noolaana ma almiino la kala faataxesto qof walba meeshu aamini kara aado mana aaminsani waana la noolahay wax isqaada kara maaha taa waxa la dhigi karaa meeshaas jecel ma yaale danaysi wax la yiraa ayaa yaala nin walbo iyo xaas walbo gabar walbo ee nolosha wadaagay boqolkiiba boqol waxay ku guuleysan karaan ayagoo is aamina saddexeeyna iska ilaaliya mar walbo oo qof saddexaad noloshiina ku soo biiraa waxay u dhowdahay mar walbood guul darrada aad ku dhacdaan labadiina waad isqabtiin nolol idin dhex martay ilma ilaahay idin kala siiyay amba wali ma aad dhalina hadii lagu yiraahdo xaaskaaga ha aaminin ee si hoose kaga tasho maxaan ka qabaa marka ma iska fasaxo marka taa waxay keenaysaa burbur in aan lagu heshii karin bal inta cimrigeena ka hartay ayaa isqabi karnaa taa meesha ka baxaysa kalsooni darro marada timaadana gurigaas ma dhisnaa karo nolol walbo oo dhisan waxay ku dhisan tahay waa kalsooni nolol walbo oo hadda aad dhis rabtana waxay ku dhisnaa kartaa waa kalsooni gabadhan wax sidaan u dayacay waliba sidaan yeelay maanta waa wiil ay aamintay ee jeclaatay laakiin sababta ayada qayb ka oo hadaladeeda nuxurka ayaad kala bixi kartaa oo ah aniga mar walbo gabar ayaa isirta waxa la ninkan wuxuu yahay iska daa markay tiraadana waa la qaatay marka waxa la family walbo dhisan mar walbo oo aad la sheekaysato qof saddexeeye ah waliba noloshiina uu soo carqaladeynayo waliba ku xad gudbayo waxa no noloshan xuduud ay leedahay aniga iyo xaaskayga wanaag iyo isjecel mooyaane xumaan kama sheegi kartid gabadhna waxaa laga rabaa markii gabar kale u timaado xan ula timaado tiraahdo ninkaaga sidaan waaye ninkaaga ha aaminin ninkaaga stop xandaabka ayaad soo gudubtay xeerka saaxiibtinimada waa jibisay xeerka gurigeyga ma soo socotaa no way ku dheh waa badbaadaysaa laakiin maruu tira allay lehe waa run balaayile u soconay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri qof kasta wuxuu ii maleysto ayaan u ahaadaa qofkii qeyr iga filo qeyr ayuu helaa qofkii shar rajeeyna hada shar un boo helaa marka qofka nolosha aad la wadaagtay yuusan kaaga sheekeen qof aan aqoon buuxdo lahayn backgroundkiis marka waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan lamaan walba oo wada jira ee wada jooga ee qalbiga iyo qulubta shaki xumaan yar isagu haaya ilaahay waxaan ka baryaynaa burcad inuu isugu mariyo lamaanaha nolosha wadaagay ee kala fogna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isku soo dhaweeyo lamaan walba oo guur rajeynayeen waxaan rajeynaynaa guur waara kalsooni ku dhisan danaysi ka dheer wada jir naqdaan inta cimrigooda ka hartayna iska weheshada adduunyadan iidaba iska koobanba kii shala noola maanta ma noola marka noloshu
waxa lagaga baahan yahay haddaad ba ka tagayso in wanaag lagu xasuusto ma aha in la kii waa ka reestay ama gabadhi waa ka reestay marka fadlan marba hal isku dhimriyo bini aadan aan nahay ma dhameystirnin qofka halku ka xun yahay halku uu ka san yahay ka wanaagsan yahay hal looga qaato xumaanta isku day qaarkood inay dhax ka daboolato waayo qofka bini aadanku ma dhameystirno sidaad aad u dhameystirneen marka mar walba dhanka xumaanta kaliya fiirin dhanka samaantana fiir xumaan haday timaado wanaag ku bedeshana wanaag ay abaalkaagu noqonaya waad ku maasantay daawashada muuqaalkan haday sita booqashadaada ugu horeysay mar kale iyo marxiga waxaan si xushmad ku dhaantay kaga codsanaya walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan sidoo kale waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad noo qurxisaan oo aad laagta iyo share-ta soo keendartaan si muuqaalkeena uu gaaro saaxiibo adigu kala qalbi wanaagsan muuqaalkan mid lamid inta kulmi doono waxaad kaga tagay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Soomaaliya nabad